wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa si rasmi ah waxa uu heshiis ula galay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdirashiid Janan ayaa goordhow xaqiijiyay heshiiska rasmiga ah ee uu la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka kooban ilaa iyo 5 qodob. Cabdirashiid Janan ayaa waxa la sheegay in dowladda federaalka uu heshiis kala galay isagoo ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland ayna la socdaan ciidamo gaaraya ilaa iyo 400 oo askari iyo 36 gaari oo nooca dagaalka ah. sidoo kale wasiirkii xilka laga qaaday ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa ciidanka la socda waxa la wareegaysa dowladda federaalka sida lagu sheegay qodobada heshiiska waxaa ka mid ah 1 in heshiiska dowladda federaalka uu la galay isagoo ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland 2 in ay la socdaan ciidan gaaraya 400 oo askari oo wata 36 gaadiid oo nooca dagaalka ah 3 in ciidankaas ay la wareegayso dowladda federaalka ee Soomaaliya 4 in heshiisku uu qayb ka yahay Korneyl Cabbaas Ibraahim Gurey iyo saraakiil kale oo gobolka Gada joogay 5 inuusan siyaasadda ka bixi doonin waxa kale oo uu Janan sheegay in intaas oo dhan uu ku saleeyay abaaraha iyo colaadaha ka jira gobolka Gada ee koonfurta Soomaaliya isla markaana uusan doonaynin inuu qayb ka noqdo isjiidjiidka siyaasadeed ee xamar ka socda sida uu yiri qodobadan hordhaca ah ee laga helay heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirka hore amniga ee Jubbaland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo waaberigii hore ee Saaka warqad ka soo baxday madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland xilkii looga qaaday Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana warqadaasi ay timid kadib markii ay shalay oo talaadaha ay soo baxeen warar ku aadan in uu heshiis la galayo dowladda federaalka ee Soomaaliya Master Janan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya maanta waxaa ka jira banaanbaxyo lagu soo dhaweynayo wasiir Janan iyadoo sidoo kale halkaas ay gaareen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in Cabdirashiid Janan uu yahay dambiile ka baxsaday xabsi dowladda Soomaaliya ay ku haysay bilowgii sanadkii 2020 isla markaana loo haysto dambiye dagaal sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya oo horaan ku xirtay magaalada Muqdisho wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa si rasmi ah waxa uu heshiis ula galay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdirashiid Janan ayaa goordhow xaqiijiyay heshiiska rasmiga ah ee uu la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka kooban ilaa iyo 5 qodob. Cabdirashiid Janan ayaa waxa la sheegay in dowladda federaalka uu heshiis kala galay isagoo ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland ayna la socdaan ciidamo gaaraya ilaa iyo 400 oo askari iyo 36 gaari oo nooca dagaalka ah. sidoo kale wasiirkii xilka laga qaaday ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa ciidanka la socda waxa la wareegaysa dowladda federaalka sida lagu sheegay qodobada heshiiska waxaa ka mid ah 1 in heshiiska dowladda federaalka uu la galay isagoo ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland 2 in ay la socdaan ciidan gaaraya 400 oo askari oo wata 36 gaadiid oo nooca dagaalka ah 3 in ciidankaas ay la wareegayso dowladda federaalka ee Soomaaliya 4 in heshiisku uu qayb ka yahay Korneyl Cabbaas Ibraahim Gurey iyo saraakiil kale oo gobolka Gada joogay 5 inuusan siyaasadda ka bixi doonin waxa kale oo uu Janan sheegay in intaas oo dhan uu ku saleeyay abaaraha iyo colaadaha ka jira gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya isla markaana uusan doonaynin inuu qayb ka noqdo isjiidjiidka siyaasadeed ee xamar ka socda sida uu yiri qodobadan hordhaca ah ee laga helay heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirka hore amniga ee Jubbaland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo waaberigii hore ee Saaka warqad ka soo baxday madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland xilkii looga qaaday Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana warqadaasi ay timid kadib markii ay shalay oo talaadaha ay soo baxeen warar ku aadan in uu heshiis la galayo dowladda federaalka ee Soomaaliya Master Janan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya maanta waxaa ka jira banaanbaxyo lagu soo dhaweynayo wasiir Janan iyadoo sidoo kale halkaas ay gaareen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in Cabdirashiid Janan uu yahay dambiile ka baxsaday xabsi dowladda Soomaaliya ay ku haysay bilowgii sanadkii 2020 isla markaana loo haysto dambiye dagaal sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya oo horaan ku xirtay magaalada Muqdisho wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa si rasmi ah waxa uu heshiis ula galay dowladda federaalka ee Soomaaliya
cabdirashiid janan ayaa goordhow xaqiijiyey heshiiska rasmiga ah ee uu la galay dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka kooban ilaa iyo 5 qodob. cabdirashiid janan ayaa waxaa la sheegay in dowladda federaalka uu heshiis kala galay isagoo ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland ayna la socdaan ciidamo gaaraya ilaa iyo 400 oo askari iyo 36 gaari oo nooca dagaalka ah. sidoo kale wasiirkii xilka laga qaaday ee Jubbaland cabdirashiid janan ayaa ciidanka la socda waxaa la wareegaysa dowladda federaalka sida lagu sheegay qodobada heshiiska waxaa ka mid ah 1 in heshiiska dowladda federaalka uu la galay isagoo ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland 2 in ay la socdaan ciidan gaaraya 400 oo askari oo wata 36 gaadiid oo nooca dagaalka ah 3 in ciidankaas ay la wareegayso dowladda federaalka ee Soomaaliya 4 in heshiisku uu qayb ka yahay Korneyl Cabbaas Ibraahim Gurey iyo saraakiil kale oo gobolka Gada joogay 5 inuusan siyaasadda ka bixi doonin. waxa kale oo uu janan sheegay in intaas oo dhan uu ku saleeyay abaaraha iyo colaadaha ka jira gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya isla markaana uusan doonaynin inuu qayb ka noqdo isjiidjiidka siyaasadeed ee xamar ka socda sida uu yiri. qodobadan hordhaca ah ee laga helay heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiirka hore ee amniga ee Jubbaland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo waa berigii hore ee saaka warqad ka soo baxday madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland xilkii looga qaaday cabdirashiid xasan cabdinuur oo ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaana warqadaasi ay timid kadib markii ay shalay oo talaadaha ay soo baxeen warar ku aadan in uu heshiis la galayo dowladda federaalka ee Soomaaliya Master Janan. gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya maanta waxaa ka jira banaanbaxyo lagu soo dhaweynayo wasiir Janan iyadoo sidoo kale halkaas ay gaareen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro, xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in cabdirashiid janan uu yahay dambiile ka baxsaday xabsi dowladda Soomaaliya ay ku haysay bilowgii sanadkii 2020 isla markaana loo haysto dambiye dagaal sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya oo horaan ku xirtay magaalada Muqdisho. wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa si rasmi ah waxa uu heshiis ula galay dowladda federaalka ee Soomaaliya. cabdirashiid janan ayaa goordhow xaqiijiyey heshiiska rasmiga ah ee uu la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka kooban ilaa iyo 5 qodob. cabdirashiid janan ayaa waxaa la sheegay in dowladda federaalka uu heshiis kala galay isagoo ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland ayna la socdaan ciidamo gaaraya ilaa iyo 400 oo askari iyo 36 gaari oo nooca dagaalka ah. sidoo kale wasiirkii xilka laga qaaday ee Jubbaland cabdirashiid janan ayaa ciidanka la socda waxaa la wareegaysa dowladda federaalka sida lagu sheegay qodobada heshiiska waxaa ka mid ah 1 in heshiiska dowladda federaalka uu la galay isagoo ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland 2 in ay la socdaan ciidan gaaraya 400 oo askari oo wata 36 gaadiid oo nooca dagaalka ah 3 in ciidankaas ay la wareegayso dowladda federaalka ee Soomaaliya 4 in heshiisku uu qayb ka yahay Korneyl Cabbaas Ibraahim Gurey iyo saraakiil kale oo gobolka Gada joogay 5 inuusan siyaasadda ka bixi doonin. waxa kale oo uu janan sheegay in intaas oo dhan uu ku saleeyay abaaraha iyo colaadaha ka jira gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya isla markaana uusan doonaynin inuu qayb ka noqdo isjiidjiidka siyaasadeed ee xamar ka socda sida uu yiri. qodobadan hordhaca ah ee laga helay heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiirka hore ee amniga ee Jubbaland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo waa berigii hore ee saaka warqad ka soo baxday madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland xilkii looga qaaday cabdirashiid xasan cabdinuur oo ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaana warqadaasi ay timid kadib markii ay shalay oo talaadaha ay soo baxeen warar ku aadan in uu heshiis la galayo dowladda federaalka ee Soomaaliya Master Janan. gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya maanta waxaa ka jira banaanbaxyo lagu soo dhaweynayo wasiir Janan iyadoo sidoo kale halkaas ay gaareen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro, xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in cabdirashiid janan uu yahay dambiile ka baxsaday xabsi dowladda Soomaaliya ay ku haysay bilowgii sanadkii 2020 isla markaana loo haysto dambiye dagaal sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya oo horaan ku xirtay magaalada Muqdisho.